السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش qiimaha iyo qaayaha leh meel walba naga daawanaysaan halkan waa Hagen Web TV oo naga barateen inaan alaabo idinku soo gudbino marba wararkii ugu dambeeyay dunida Soomaalida barnaamijkeena maanta waxaa idin daadiinay anigu ah Khaliif Cabdi Cali maanta waxaan kaga hadli doonaa mowduucyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay dunida Soomaalida oo u aragno inay muhiim tahay in bulshada Soomaaliyeed laga dabageeyo faalo laga bixiyo qodobada ugu muhiimsan arrimahan maanta kusoo qaadan doono waxaa ka mid ah kalfadhigii Soomaaliya iyo maaragtay firimbi ka dhacay waxa kaleeto oo kusoo qaadan doonaa Djibouti oo wiil dhalinyaro ah oo duuliya oo mutacalima si bini'aadanimada ka baxsan loogu ciqaabayo Djibouti waxa kaleeto kusoo qaadan doonaa Coldoon oo la soo daayo la rajaynayo waxa kale oo kusoo qaadan doonaa jabhadda ONLF oo shirar ku jirtay loona badinayo inay afgarad ku dhamaadaan khilaafyo yaryar oo qaabka maamulka ah oo jiray in maaragtay la xaliyo qodobadaas iyo qodobo kale oo badan ayaan kusoo qaadan doonaa oo kaga hadlayno arrimaha bulshada Soomaaliyeed soo dhawaada dhamaantiin bulshada Soomaaliyeedna gaarsiiya fariintan haddaan kusoo qaadano qodobka koowaad baarlamaanka Soomaaliyeed baan kusoo qaadanaynaa runtii baarlamaanka Soomaaliyeed iyo dowladda Farmaajo madaxweyne Farmaajo waad ogtiin doorashada markuu gelayay wuxuu ku galay ciidan qaran Soomaaliyeed ayaan sameynayaa waxaan noqon doonaa madaxweynaha safarada ugu yar gala oo diyaarada badan ma raaci doono lacagta Soomaaliyeed waa ilaalin doona qarannimadii Soomaaliyeed baan soo celin doonaa waxa kaleeto uu madaxweynuhu ballan qaaday sad weydeenba inuu isla mar ahaantaas uu yacni Soomaaliya meesha one man iyo one vote u gaarsiinaya afartaas sano in qof walba oo Soomaali ah uu codkiisa doorashada soo socota uu codkiisa ku dooran doono hogaamiye uu jecel yahay qodobadaas iyo qodobo badan oo meesha kala soo tirin karin buu madaxweynuhu soo bandhigay oo ay ka mid tahay inuu qarannimada Soomaaliya jecel yahay inuuna ka aqbalaynin wadamada derisku inayna Soomaali u yeerinin Soomaaliyana uu ka dhigayo doono wadan madax bannaan oo siyaasadiisa isagu gacmihiisa ku qabsada marka waxaan qiimeyn doonaa ilaa hadda oo uu gabagaba yahay oo kalfadhiga hadda baarlamaanka kii ugu dambeeyay yahay maxaa u qabsoomay maxaa ka rumoobay maxaa ka beenoobay marka maxaa lagu amaani karaa maxaa lagu dhaliili karaa dabcan fikirkeena ka dhiibanaynaa doodan iyada idinka laftigiina comment ka dhiibta saad u aragtaan madaxweynaha wixii u qabsoomay waxaan u qabsoomin iyo prime ministerka ka faallooda insha Allah ilaahay hadduu yiraahdo si markaa bulshada Soomaaliyeed u ogaato anu maxaan aaminsanahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo prime minister Khayre muddadii ay joogeen waxyaabaha la taaban karo ee u qabsoomay waxaa ka mid ah kow in ay ciidamadii wadamada shisheeyuhu ay ku haysteen Soomaaliya ay gacantooda ka bixiyeen tusaale ahaan ciidamadii Imaaraadka iyo AU-da iyo Mareykanka iyo goonida u tababaranayeen sida maleeshiyaadka ee meelaha kala duwan xerooyin kala duwan lagu haystay wadamooyin kale amar ka qaadanayeen mushaarka siinayeen inay ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed xoog ku mideeyeen arrinta iyada madaxweynaha ku amaanaya iyo prime ministerkaba way ku ammaanayeen oo maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inkastoo marmarka qaarkood isdagaalaan laakiin haddana prime ministerka iyo wasiirka difaaca ay awaamirtooda hoos yimaadaan arrinta iyada waa arrin lagu amaanay madaxweynaha iyo prime ministerka waxaa kaleeto ammaan iyadana mudan in ay dhexda ka istaageen Imaaraadka iyo Carabaha dagaalkii Khaliijka inay diideen walow lagu eedeeyay madaxweynaha prime ministerka inay la safteen Qatar iyo Turkey
haddana laakiin mowqifkii ahaa inaynan sacuudiga iyo imaaraadna cadow ka dhiganin qatar iyo turkina cadow ka dhiganin oo soomaaliya meel dhex istaagto absolutely waan ku ammaanaya boqolkiiba boqol waan aaminsanahay inay dowladda sacuudiga iyo dowladda imaaraadkuba iyo wadamo badan oo carababa ay uga cadhoodeen madaxweynaha iyo prime ministerkaba laakiin go-aanka waa go-aan xakiima soomaaliya dowlad ma aha qaran ma aha xagiisa ku taagan waqtigan xaadirka soomaaliya cidna inay cadaawad u qaado uma baahna waxay u baahan tahay keliya waqtigan xaadirka qaranka soomaaliyeed inuu ku mashquulo sidii ay cagahooda ugu istaagi lahaayeen qof walba oo caawinaya cadowna allah ka dhigay inay ay kaashadaan si ay qaranka soomaaliya cagiisu istaago waqtigan xaadirka soomaaliya heshiisyo waaweyn iyo EU iyo shirar carab iyo waxaas inay gasho looma baahna waxaa loo baahnaa inay ku mashquulsho ciidan qaran inay samaysato badaheeda iyo xuduudadeeda ammaanka inay sugto maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku inay iskaashadaan soomaaliyana ay noqoto waddan cagiisa ku taagan oo runtii dhinac walba ka dhisan markaa kadib bay soomaaliya awooddaa inay kala doorato gruubkay ka mid noqon wadamaday saaxiib la noqon iyo kuway cadow ku noqoto markay waddankeeda gacanta ku dhigto intaa iyadaa madaxweynaha prime ministerka waxyaabahay ku ammaanayeen mawaaqiiftaas maxay ka gaabiyeen madaxweynaha iyo prime ministerku markii la doortay kadib istiraatiijiyadoodu ma ahayn mar walba mid cad oo qeexan madaxweynaha iyo prime ministerku way dadaaleen anusaan qabo laakiin waxay ka gaabiyeen inay khibrad ahaan iyo siyaasi ahaan dad barnaamij iyo vision ay 4 sano ku dhammaystirayaan aan wadnin inay ahayn hadday wateen inay amar ka qaateen wadamo kaleeto oo sida kuwa igaday jooga iyo amisom iyo inay amar ka qaadanayeen oo iyagu joojiyeen vision iyo aragti ay wateen oo ay rabeen inay fuliyaan inuu jirin taasoo keentay inay mar walba noqdaan dad daawadayaal iska fadhiya oon horey u dhaqaaqaynin taasoo keentay maanta oo ay xukun ka tegayaan in aynan waxyaabahay ballan qaadeenna u hirgelin ummadda soomaaliyeed waxay ugu baahi badnaayeenna aynan qabsoonin oo maxaa ka mid ah soomaaliya ugu baahi badnayd constitution national constitutionka yacni inuu jiro soomaaliya xeer u degan oo qaranka soomaaliyeed leeyahay oo lagu wada xisaabtami karo oo qeexaya awoodaha maamul goboleedyada oo qeexaya awoodaha ra-iisul baarlamaanka oo qeexaya qof walba iyo xeerarka ciqaabta dhinac walba marka waxaan dhihi karnaa madaxweynahan mana aha madaxweynihii koowaad ee soomaaliyeed ee ka tegaya xukunka isagoon constitution soomaaliya oo dhammaystiran samayn sheekh shariif baa yimid cabdullaahi yuusuf baa yimid uu ka tegey waxaa yimid xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif way ka tageen waxaa weeye farmaajo hadda waa kii afraad wey 4 lagu dhuftay 4 ama waa 20 sano 20 sano soomaaliya waxay ku jirtaa bilaa constitution waddanku hadduuna constitution lahayn lama dhihi karo waddan jiro oo cagiis ku taagan male nasiib darro soomaaliya oon constitution lahayn haddana waxaad arkaysay madaxweynaha iyo prime ministerkii inay sida waddan u dhaqmayeen united nationkay tegayaan shirka carabtay tegayaan yani way hilmaansayin marka meeshaas dad badan waxay is su-aalayaan why constitutionka soomaaliyeed 20 sano loo samayn layahay marka dadku waxay kula qaybsan yihiin fikirkan qaar waxay leeyihiin soomaaliya looguma talagelin waddan cagiisa ku taagan inuu noqdo oo constitution iyo xeer iyo dib inuu yeesho soomaaliya waxaa la rabaa in la ciyaarsiiyo caadaqaatayaal loo gacangeliyo marka dambena si tartiiba loogu daro sidii horeyba loogu sheegay oo janankii sacuudiga u sheegay in lala mideeyo etoobiya ama kenya ama la qaybiyo laakiin soomaali dambe oo qaran ah oo constitution leh oo xeer leh oo garsoorayaal leh oo dowlada oo ciidan badeed leh inayna dib u soo noqon sababtaa darteed baa nin walba madaxweynaha soomaaliyeed intuu yimaado waxaa leeyahay lacagtaada iska gurbiso meelahaaga iska warwareeg 4 sanana kuu dhammaato marka dambena waxaa lala sugaya ilaa dad saxa ay ka imanayaan oo hawsha iyadaa fushada arrinta marka loo baahaya maxay tahay yacni waxaa loo baahaya marka dadka soomaaliyeed in ay dadka soomaaliyeed waxaa looga baahaya inay ku baraarugaan khatarta yacni constitution la-aanta farmaajo marka wuxuu kaga tegay soomaaliya bilaa constitution wuxuuna kaga tegi doonaa bilaa one man one vote waxaa kaleeto khatara oo kusoo socota inuu madaxweyne farmaajo ka tago waddanka soomaaliyeed inuu buuq ka abuuraa dhici karta sababtoo waxaa muuqata farmaajo iyo khayre sidii xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo sida sharafta u wareejiyeen xukunka ee doorashadii u diyaariyeen ee maamul goboleedyadii soo xula baarlamaanadii waa sidii dhaqanka loo yiri ee ma aragtay doorashadu dhacday inaynu ku socon waxay rabaan inay sheeko qoota ah ku cusboonaysiistaan arrintaasoo soomaali oo dhanna ka digtay marnan aan suurtagal noqonayn suurtagal ma aha farmaajo iyo khayre inay qaranka soomaaliyeed afduubaan oo iyagu sida ay jecel yihiin
la quman tahay u dhaqmaan Soomaalidu ma aqbalayso farmaajo khayriin iska yimaadaan mana aaminsan ana shakhsiyan inay awoodi karaan inay soo noqon karaan sababtoo ah qofka 4 sano joogay constitutionka qaranka sameyn waayay maamul goboleedyadii isagoo dhan iswada dagaashan yihiin ma aragtay ciidanka Turkigu sameeyay kaliya ayaa ka jira waxa kaliya la taaban karo iyo ciidamada Imaaraadka meesha ay ka qaadeen gacantooda ka bixiyeen laakiin qaranka Soomaaliya waa sidii baa loo kala fadhiyaa sidii baa loo murmayaa sidii baa xeerkii constitution u jirin marka madaxweynaha intaa ku fashilmay in haddana fashilaadii loo soo dheeray waad ogtiin baddii Soomaaliyeed maxkamadeedii waa markii labaad dib loo dhigay يعني بدda Soomaaliyeed oo shidaal ka buuxo oo Soomaaliya iska leedahay oo la og yahay xataa uu ku dhiiran waa inuu dhaho dib uma dhigayno maxkamadda waqtigeeda ha dhacdo haddii kale taana baddeen awal badood ku meeni jiray meesha marka waxaa ka muuqata in xeer jajab badan uu fulinayo prime ministerka madaxweynuhu aad bay ugu eedeysay waxaa marka soo hadhay marka doodii ka dhacday baarlamaanka waxaa ka dhacday iyo Firembigi xasan cabdi uu ku soo jeeday runtii wuu istaahilay baarlamaanka Soomaaliyeed in lagu mudaharaado oo shaneema Afrika noqdo waxaa ka mas'uula ra'iisul baarlamaanka madaxweynaha iyo prime ministerka markay wadankii constitution u sameyn waayeen wada xisaabtan jiri waayo wadankii Soomaaliyeed hore loo kicin waayo qof walba markaa suu rabo inuu dhaqmay noqonaysa Firembigi iyo prime ministerka waxaa laga rabay runtii inay muujiyaan madaxweynaha iyo prime minister waxa laga rabay inay iyagu sharci u hoggaansamaan markoobaad qofku hadduu sharciga u hoggaansami waayo sabab loogu hoggaansamo ma jiro qofku hadduu sharciga ixtiraami waayo sabab loo ixtiraamo ma leh ra'iisul baarlamaanka iyo prime ministerka iyo madaxweynaha iyo baarlamaanka laftigiisu wax ixtiraamo yeelanayaan ma laha hadday noqon waayaan meel shuruucda u hoggaansama waad ogtihiin prime minister ra'iisul baarlamaanka waxaa keensaday khayre iyo farmaajo meeshay keensadeen buu iska fadhiyaa lacagtiisu iska qaadanayay dantiisu iska raacanayay waxba ha dhaqaajin baa layidhi dowladda inay la xisaabtamaan mayna ku dhaqaaqin prime ministerka inay la xisaabtamaan mayna dhaqaaqin wasiirada inay la xisaabtamaan mayna dhaqaaqin dhaqaalaha Soomaaliya in la xisaabtamo ma dhaqaaqin marka in Firimbi ay sheegaysaa ay maaragtay xergeel noqoto oo shaneema Afrika noqoto waa wax ay dowladdu eedeeda leedahay oo prime ministerku eediisi leeyahay oo ra'iisul baarlamaanku eediisi leeyahay oo madaxweynuhu eediisi leeyahay sababtoo baarlamaanku waxay idin xeer hoosaad leeyahay una shaqeynayo si baarlamaan sax ah madaxweynuhu wuxuu soo galay heshiisyo badan oo ula galay wadamo kala duwan oo ilaa hadda la garanayay sababta ula galay yaa u siiyay xasaanadaas inuu wadamo heshiis kala galo aan cidi ogeyn taasoo liidi ku ah qarannimada Soomaaliyeed taasoo liidi ku ah sharafta Soomaaliyeed taasoo khatar u ah qaranka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah heshiiska ula galay Eritrea iyo Ethiopia oo kaleeto yaa u wakiishay yuu kala tashtay madaxweynuhu ma aha Soomaaliya ma aha yani mushaarkaagii oo intaad qaadato meesha rabta aad geyn karto Soomaaliya waa wadan khayraadkiisa iyo siyaasadiisu waxay u baahan tahay in mar walba baarlamaanka lagula soo noqdo laga wada tashto oo la dhawr maxaan sameynaa maxaa sax maxaa qaldan heshiiskaasaan galay oo yani baarlamaankan waxaa la rabay xeer adag inay ka soo saaraan sababtoo Soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad crisis ah baddii Soomaaliyeed baa qalin nimanku qaateen oo ay ku bixiyeen xeebtii Soomaaliyeed shidaalkii Soomaaliyeed yaa niman cad quureed intay qaateen baa waxaa la siiyay $10 milyan ama $5 milyan wax u dhiganta oo la yiri noo saxiixa si buuq uga dhasho oo iyagu gacantooda ku saxiixeen baarlamaanka waxaa la rabay marka intay ka fariistaan inay dhahaan mas'uul Soomaaliyeed oo keligii wax heshiisa saxiixi kara ma jiraan oo xeerka isaga mar walba meesha yaalo si maaragtay loo ilaaliyo hantida Soomaaliyeed wadan walba uu ogaado baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan marin inayna sharci ahayn sharcigaana uu noqdo sharci ummadda Soomaaliyeed ilaaliya ilaa ay dowlad xoog leh ka noqonayso cageeda kaga istaagayso marka waxaan dhihi karnaa arrintii runtii aad buu u fiicnayd inuu xildhibaan xasan xasuusiyo farmaajo inuu yahay nin faashil ah inuu yahay nin aan ixtiraam astaahili inuu yahay nin maanta 4 sano uu joogay qaranka Soomaaliyeed meel cilaa kaga tagay nin xataa ciidankii Iraa'i Turkiga soo tababaray intuu qaaday dagaal maalayacni geliyay oo shacabkii gado midnimada iyo sharafta ku joogay horumarku soo oogay waxbarashada iyo tabcashada ku jiray dagaal cadaawad iyo loolan dhexdooda dhex dhigay cadaawadna ka dhex abuuray maamul goboleedyadii already hadday noqoto Galmudug hadday noqoto Puntland hadday noqoto Baybakol koonfur galbeed iyo Jubbaland wada weynaan wixii ka dhacay meeshii la rabay marxaladan xasaasiga shacabka Soomaaliyeed aad ku kala qaybsan yahay in madaxweynaha federaalku mar walba uunan buuq ka fogaado waxa kaliya ugu baahida yariya waa inay buuq dhacaan sababtoo ah markii dadkaagu midaysnayn markuu dadkaaga qaybsan yahay markuu dadkaaga kala shakisan yahay markuu ciidamo shisheeye wadankaaga joogaan ahmiyadaada koowaad waxaa weeye sugidda caasimadda ammaankeeda
soo celidda nidaamkii dowladnimo ee caasimadda shuruucdii constitutionkii waddanka ilaalinta xuduudaha dalka Soomaaliya waxay ahayd inuu maamul goboleedyada isagoo kaashanaya oo ciidan xuduudada dhigo meeshu kaga mashquulay isaga inuu u yeeriyo maamul goboleedyada inuu ku mashquulo dhaho anigu dowladda federaalka ana xuduudadoo dhan ammaankaan sugaya bad iyo beriba aan iska kaashan oo ciidan isku dhafa oo xuduudada Soomaaliyeed ilaaliya kaasoo ah mid bad iyo mid beriba in la sameeyo laakiin waxaad moodaa kii badda iyo kii beriga waana arrinta ugu muhiimsan bay ahayd runtii sababta maamul goboleedyada markaad xuduudadii ilaalinayso Soomaaliyeed iyo baddii Soomaaliyeed maamul goboleedyada calooshaada ku jiraan waxay ka qaban karaan mar calooshaada hadhowbaad waxaad u gelaysaa tartiib oo arrinta loo galo si positive ah oo dadka Soomaaliyeed runtii dantooda ku jirto oon buuq ahayn laakiin waad garanaysaa farmaajo markuu arkay ciidan ay soo tababareen oo si fiican u tababaran oo Soomaaliya amar kala qaadanaya isla markii wuxuu awood buu isbiday inuu isticmaalo si khalad oo handadaad halkaasaad qabaysaan bu'aaladii qabanaysaan halkan baad tegaysaan Jubbaland baad aadaysaan iyo Sheekh Xariir laakiin waaqiciga runta ee kharaar wuxuu yahay Soomaaliya ma aha waddan xor ah ciidankuna intuu iska baxo Kismaayo bu'aala midna iskama aadi karo waxaa weeye farmaajo amar buu qaataa ma aha madaxweyne gacan bannaan oo wuxuu rabo samayn jiro bu'aalaan aadaynaa beriba bu'aalaa la aadayaa beribaa la qabanayaa heestii la qaadaya xaggee ku dhammaatay يعني ميلو مين دقائق صوبته هاستو يعني صح مين أهين هاست يعني سوماليا ولي قاعنكم مجرتو أمان كيدو مصونا قفك الصومالي ومعها إنه مدحوين أول بوي ماد إنه كري سورة وسمين كرا معه أكثر ما تشوفه هستي إنه كري وحورة وسمين كرا أرنت أنا أرنت صح معه إن هذا مركب وحاوي أرنت أيضا مدحوين وكفر شلمي قلب كايساقع فرماجي برلمان كيسال كاسم وجود بينا وحاول وجود بينا عمر جيلي عمر جيلي ديكتاتوركا مدحوينها ديكتاتوركا ee Djibouti runtii muddo dheer ayuu Djibouti joogay shacabka Djiboutina aad iyo aad bay u rafaadeen runtii oo maamul xumo aad u badan hadday noqoto dhinaca bulsho hadday noqoto dhinaca dhaqaale iyo hadday noqoto dhinaca maamulba awoodii maamulka Djibouti waxaa ku haya qoys fara ku tirisa ama dad candha wadaaga ayaa gacanta ku haya runtii shacabka isaga aad bay u rafaadsan yihiin cabashadoodana muddo badan waxaa xorriyatul qowl la'aan baa haysa cadaalad darro iyo matalaad la'aan baa haysa dhaqaale xumo ayaa haysata wadamo caalamkii oo dhan waana ogta Djibouti waddan badan maa 500 oo half milyuun ama milyan ma gaaraan dadkeeda waxay ahayd qof walba reer Djibouti in fadhigiisa lagu biilo laakiin cadaalad darrada iyo maamul xumada meesha ka jirta darteed ayaa shacabka Djibouti ay u rafaadayaan عمر جيلي iyo qaraabadiisa iyo gabdhiisa kuwa qaba iyo wiilashiisu gabdhaha ay qabaan iyo qaraabada candho wadaagta un baa iska maamulanaysa iyagoo wadamo ajaanib ay kaashanayaan laakiin dadkii Djibouti way baahan yihiin wayna rafaadsan yihiin xorriyadoodii sharaftoodii karaamadoodii waddankoodii xuquuqdoodii dhammaystiran ma helayaan marka in Cumar Geele wuxuu iska dhaadhiciyay dadku inuu iska leeyahay xoolana yihiin isagoo sakaraadaya oon socon karin oo vision iyo sharci iyo xeer iyo midna wadanin wuxuu rabaa dadka inuu dhakada kaga taagnaado arrinta iyadana hortii baa la soo tijaabiyay miro badan dhali mayso haddii wiil yar oo wada aragteen la jir dilay oo la gubgubay oo maaragtay loola dhaqmay si bini'aadamada ka baxsan wiilkaas oo muuqaalkiisa markaad aragto mutacalima baylooda soo tababartay reer Djibouti sharaf leh waxaa laga yaabaa fikir yar oo cabiray ama qof yar oo isqabteen insaa loogu ciqaabay wiilka isaga arrinta iyada arrin la qaadan kara ma shacabka Djibouti gadood bay ka bilaabeen arrinta iyada mucaaradkii baa soo badanaya mucaarad badan oo reer Djibouti baa hadda Canada ka samaysmay Yurubna ka samaysmay siina balaaran doonaan lamana xamili karo inta ka badan waxaan ugu baaqayaa ehelka iyo xigtada iyo wiilasha uu dhalay iyo gabdhaha uu dhalay Ismaaciil Cumar Geele inay ka qabtaan shacabka Djibouti intaynan meel xun una geynin shacabka iyo dadka Djibouti in laga qabto oo uu ogolaado nidaam feer cadaalada xisaabtan leh oo khayraadka iyo maamulka Djibouti uu socdo si sax ah oo mustaqbalka shacabka Djibouti ay noqdaan shacabka cantooda ku haya haddii sidan uu ku socdo in Cumar Geele ay Djibouti ku sii jirto Djibouti waxay noqonaysaa waddan la qaatay iyadoon lagu talagelin iyadoon laga warqabin waxa la arkay iyadoo gacan kala gashay intaasoo saldhig iyo intaasoo waddan iyo istiraatiijiyada ku taala intaba caadi ma aha laakiin madaxweyne xun oo maaragtay fadhiida oo aan qorshayaal iyo vision midna wadanin oo maaragtay dadka kale waxay u yeeriyaan kaliya ku shaqeeya meesha fadhiya marka waxaan u baaqaynaa Ismaaciil Cumar Geele inuu siyaasadiisa bedelo shacabka Djiboutina oo u ogolaado ka qaybgelidda maamulka dalkooda dadkooda xuquuqdooda dhammaystiran in ay helaan inta iyada waxaan kaga gudbayaa in Cumar Geele runtii
beryahan soo socdana waxaan wareysan doonaa siyaasiyiin badan oo reer Jabuuti ah runtii oo gabdho iyo wiilalba leh kuwaasoo ka cabanaya siyaasadda iyaga ah si aan maaragtay ugu heelino in Cumar Geelana aan u tusno in shacabka Soomaaliyeed ay ka codsanayaan inuuna noqonin sida dictatoradii casharana uu ka qaato dadkii isaga ku horreeyey uuna aqbalo inay dadku maaragtay iyagu ismaamulaan si cadaaladna ay helaan xukunkan ka qayb galaan dadkuna inay fikirkooda cabiraan uu qadariyo runtii saasaan aad u jeclaan lahaa dadku inta xamili kareen way xamileen waxa weeye adeerkiiba ku dhintay isagoo kursiga saaran isagana inuu ku dul dhinto oo maaragtay ma aha waa inuu mustaqbalka siiyo dhalinyarta xataa hadduu kursiga fadhiyo dhib malaha laakiin marka waa in xorriyatul qowlkii iyo ka qaybgalkii uu siiyo fursad marka intaa ka gudubno waad mahadsantahay qodobka waxaan qodobkeena kale ugu dambeeyay aan rabo inaan kusoo qaato oo waxay tahay ONLF jabhadii ONLF ee Ethiopia la dagaalamaysay waxay gashay saad ogtihiin Ethiopia heshiis bay la gashay waxay damcday qoriga inay dhigto oo ay qalin ku bedesho runtii laakiin markii jabhad ama urur siyaasad ay ku jireen markay ka leexdaan ay siyaasad ka galgalaan mar walba waxaa bilowda kala aragti duwanaansho haddaan jirin barnaamij la dejiyey oo laisku waafaqay oo dantii ururka isaga u taagan haddayna dhicin marka ONLF haysad badan baa jiray waxa wararna soo dhaco oo soo gaaray waxay sheegayaan in ONLF ay safgaratay runtii waxaan rajaynaynaa arrinta iyada run noqoto waxaan rabaa marka inaan fikirkayga shakhsiga halkan u mariyo halganka ONLF wuxuu kusoo kacay qiimo aad u badan wiilal qaali iyo gabdho qaali oo badan baa runtii ku shahiiday ujeedadii dadka u shahiidayaan waxay ahayd in shacabka Soomaaliyeed ay sharaftooda helaan ay xuquuqdooda helaan gumaysiga ay ka hoos baxaan bay yoolka isagana wali lama gaadhin sidaa darteed waxaan xusuusinayaa ragga hormuudka ama golaha dhexe ama mas'uuliyiinta jabhadda ONLF inay isu sabraan isu tanaasulaan waqtigan xasaasiga shacabka Soomaaliyeed u marayana ay maaragtay ay wax danta dadka ku jira ay ku dhaqaaqaan kala qaybsanaanta iyo siyaasadka badan ay joojiyaan runtii waxa kaliya ummad kale haga ma waxay la tahay saan raba yeel ma waa xeer iyo constitution waxaan ugu baaqayaa jabhadda ONLF madaxdeedu inuu la dejiyo xeer iyo nidaam lagu kala bixi karo kaasoo qeexaya qof walba awoodiisa sidan haddaba u lahaa farmaajo iyo madaxda kaleba haddii xeerkaa la helo oo sharci jiro dadku way kala soconayaan laakiin haddii sharci la raaci waayo oo qof walba uu dhaho waxay la tahay dadku qof ka raaci maayo maanta dhan waa la seexsanayaa waxaan kale oo kula talinayaa in gudoomiyaha Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi waqti yar baa la doortay oonan aad u dheerayn runtii waqtiga isaga in xeer la dejiyo doorasho oo feera waqtiga isaga buu waqtigiisu kaga egyahay runtii hadduuna dembiye gelin in fursad la siiyo oo la dhageysto oo la ixtiraamo dadkuna runtii waxay ku kala baxaan oo ku horumaraan is-ixtiraamida iyo ismaqalka in marba qofkii ay doortaan ay fursadna siiyaan maqlaan iyagoo dhaliilaha iyo ceebaha uu leeyahay u sheegaya laakiin in la dhaho qofka waa inuunan dhaqaaqino aan bajarino waxay dhibaato ku tahay dowladnimada maamulnimada xisbinimada ururnimada intaba dhaawac bay ku tahay in qofka lagu hadlaysaga maro faa'iido maaha haddaad rabto inaad wax xukunto waa in aad ogolaato in lagu xukumo mar walbana qof walba muddadii xukunka laga qaadayo waa in la ogaado inay tahay waqti cayiman muddada isaga qofkii aan rabin inuu la shaqeeyo xaq buu u leeyahay inuunan la shaqeyn hadduu rabo laakiin inaad muddadiisa isaga lagu ixtiraamo yaan aad iyo aad u rajaynaya insha allah ilaaha jilaa shacabka Soomaaliyeed Ethiopia gumaysan jirtay wali dhibkii ugu haystaa runtii deegaanadoodu baahida way ka jirtaa cadaalad darradii way ka jirtaa maamul xumadii way ka jirtaa corruptionkii uu ku jiraa haddana qowmiyadihii kaleeto oo dhan baa kusoo gurmaya hay-adihii deegaanka ka shaqaynayay waxaa laga shaqaalaysiinayaa qowmiyada kale kuwaasoo ku guuraya ururo iyo hay-adaha la sameeyey si deegaanka Soomaaliyeed loogu soo guuro runtii meesha dadkii Soomaaliyeed reer hebel iyo kuraas iyo waxaan jirin hadday xisbi noqdaan ay isku hayaan iyo haddii dowladda deegaanka ay noqdaanba in siyaasad degan oo deegaanka Soomaaliyeed in la wada yeeshaa oo Ethiopia oo dhan ka dhaxeeyo iyadoo qowmiyad walba deegaankeedii gooni u leedahay maanta ma jirto qof Soomaaliya intuu sidaama tago bajaajna ku wadan kara hoteelana ka dhisan kara masaajidyana ka furan kara ma jiraan laakiin deegaanka kaliya ee loo wada siman yahay waxaasoo dhan lagu samayn karo waa deegaanka Soomaalida ee sida xawliga ee qorshaysan ee xawaaraha ku socota ee runtii loogu soo wada guurayo iyadoo maalin walba intaasoo basasa iyo intaasoo taraaglayaala oo dadyow kaleeta ay kusoo daldalmayaan iyagoo ujeedadoodu tahay in dhulkaas Soomaaliyeed dadka degan laga gacan bixiyo siyaasaddan oo ah runtii siyaasadtii deganayd oon hadda dhalanin caawo dhalin qof walbana uu dareemi karo cawaaqib aad u xunna laga dhalin karo sababtoo
maamulkii dowlad deegaanka ee hawshaas ku feejinaan lahaa gobol walba waxay ahayd shaqada qofka ka shaqaynaya dadka bajaajka wata inay yaqaanaan magacyadooda oo yihiin dad degaankii ah shaqa abuurka in loo sameeyo dadkii deegaanka timanjarayaashu inay yihiin dadkii timanjarayaasha deegaanka ah dhardhaqayaashu inay yihiin dadkii dhardhaqayaasha deegaanka ah yacni kuwa guryaha dhisay inay yihiin dadkii guryaha dhisaya ee deegaanka markaa lacagtu waxay gelaysaa dadkii deegaanka xirfadii waxaa baranaya dadkii deegaanka haddii qowmiyadaha kale marka inay buuxiyaan meelaha shacabka soomaaliyeed ayna khibradda u lahayn in laga soo qaato ceeb maaha dadkaa kale oo dadkii baraan laakiin in shaqadii hoose oo dhan ay dadyow kala qabtaan oo gobolkii u noqdo gobol dayacan oo lagu soo wada guuro dadkii deegaankuna ay qaad inta u fadhiyaan iyo qabiil meel cidla ah fadhiyaan runtii khatarteeda ayay leedahay sidaa darteed waxaan u baaqayaa jabhadda wanalaf iyo dowlad deegaanka iyo dhammaan ururada kala duwan in arrinta ayadaa lagu baraarugsanaado dadka soomaaliyeedna meesha ay yaallaana waa meesha ugu liidata etoobiya qowmiyadda ugu liidata qowmiyadda ugu maamul liidata qowmiyadda aan xeer iyo nidaam midna ka jirin sida la rabo ka yeelaan yacni sidaama cid faragelin karta reer sidaama mooyaane ma jirto gambeelo cidan reer gambeelahan oo faragelin kartaa ma jirto amxaaro la mid oromo la mid wey deegaanka keliya ee cid walba faragelin karta waa deegaanka soomaalida arrinta ayadana waxaa mas-uuliyadda koowaad ay dusha u saaranta dadka soomaaliyeed si looga baxo waxaa loo baahan yahay in sharci iyo nidaam iyo ka warqab inuu jiro runtii oo dad lexjeclo ay ka hayso dalka iyo dadka xilalka muhiimka ee bulshada hogaaminteeda loo magacaabo barnaamijkeena maanta dunida soomaalida intaas ayaan kusoo qaadan doonaa intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo khaliif cabdicali oo idin leh intaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu